engineer Yaasiin waa mahadsantahay adiga dhageystayaasheena qiimaha leh ku xiran mar walba barteenan isla markaana kala socda wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe dabcan wararka maanta oo axada waxa ugu dooron dawladda dalkaasi Qatar ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u shaacisay uguna dhawaaqday inaysan aqbali doonin guud ahaan 13 qodob ay soo saareen dalalka Sacuudiga horboodayo kuwaas oo ay ku dalbanayeen inay Qatar fuliso si loo furo wada hadal wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Qatar ninka la yiraahdo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani oo ku sugan magaalada Roma ee dalkaasi Talyaaniga ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay markaana ku gacan sayray in guud ahaan dawladda Qatar ay diiday buuri qodobadan oo markii horeba ku tilmaamay in loogu talagalay in la diido oo ay ogaayeen buuri in la diidi doono isla markaana ay yihiin buuri qodobo ka baxsan ama ka hor imaanaya buuri shuruucda dalkiisa dalka Qatar madax banaanida iyo jiritaanka dalkaasi wuxuu hoosta ka xariiqay Mr. Sheikh Thani in guud ahaan dalkiisu arintaas ku gacan sayray wuxuuna yiri qof kasta wuu ogaa in dalabkan uu ahaa ama macnihiisu uu ahaa marka la soo koobo in faragelin lagu sameeyo madax banaanida iyo dalnimada dalka Qatar isla markaana albaabada la isugu dhifta buuri ama cunaha lagu dhigo buuri xoriyada qowlka iyo sidoo kale buuri in la burburiyo buuri kalsoonida dhageystayaasha iyo daawadayaasha TV-ga weyn Al Jazeera oo markaas cunaqabatayn la saaray buuri taana Qatar waa diiday buuri wuxuu yiri waxaan aaminsanahay in aan dunida lagu dhaqin buuri dawlad rabitaankeed oo dalabaad ayada dawlad kaliya ay soo dejisatay laakiin ay aaminsan in dunida lagu dhaqo buuri sharciga caalamiga ah ee loo yaqaan international law wuxuuna ka digay in hadii waxaan oo kale la ogolaado ay dalal badani runtii ay arintan oo kale ay cid isku dhacaanba ay ka dalbad karaan wuxuuna sheegay in dalalka waaweyn ay bartaan buuri inaan dalalka yaryar macnaheedu aysan ahayn inay daciif yihiin balse yaraanta dalkiisa ay ka hooseysa buuri awoodda ay u leeyihiin buuri inay madax banaanidooda diblomaasiyadda caalamiga iyo tan kale sharafeedba ay ku daafacdaan wuxuuna ka digay Cabdiraxmaan ninka la yiraahdo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Saud in arintaas aan lagu celin mar damana aan qadarna laga rajeen buuri fulida iyo wuxuu ugu yeeray in lagu sanduleeyo buuri 13 qodob oo sharci darra Sheikh Mohammed Al Thani wuxuu arintan sheegay wuxuu ka yaras iyadoo ka harsan tahay 24 saacadood markii loo qabtay dalka Qatar oo muddo 10 maalmood ah inuu uga soo jawaabo oo ku eeg maalinta Isniinta ah inay uga soo jawaabto Qatar 13 ka qodob oo Sacuudigu ay sheegeen haday ka soo jawaabi waayaan inay talaabooyin dheeraad qaadanayaan oo lamana garanayo talaabooyinka ay runtii ay qaadi doonaan Sacuudigu hase yeeshee Qatar waa diiday si rasmi ah ayay haatan ugu dhawaaqday inay 13 ka qodob aysan hal qodob oo kamid ah aysan fuli doonin isla markaana aysan yeeli doonin sida uu cadeeyay diblomaasiga ugu sareeya dhinaca siyaasadda ee dalkaasi Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani oo ku sugnaa magaalada Rome ee dalkaasi Talyaaniga kadib markuu ka duulay magaalada New York ee dalka Mareykanka asagoo muddo 3 maalmood ku sugnaa dalka Mareykanka isla markaana kulamo waaweyn la yeeshay dawladda Mareykanka iyo waliba xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ka tirsan ee 15 ka uu badankooda kula kulmay xarunta ay dalka Qatar ku leedahay magaalada New York ama dadka u qaabilsan xafiiskooda u qaabilsan qaramada midoobay dalkaasi Qatar oo ka codsaday isagoo warkan shalay ku tabeynayba in qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka uu soo farageliyo arintan sidoo kale Yaasiin wararka maanta waxa kamid ah safiirka u fadhiya dalka Kuwait dawladda Mareykanka Lawrence Silverman ayaa wuxuu sheegay ama ku baaqay in arinta lagu soo gabagabeeyo ayuu yiri si aan wada hadal iyo xal buuri cadaalad ah oo lagu dhameynayo kala duwanaanshaha gacanka wuxuuna sheegay in dawladdiisu ay taageersan tahay wuxuu ugu yeeray dadaalada aan kala go'al lahayn ay dalka Kuwait ay ku doonayaan in qadiyadan lagu dhameeyo wada hadal isla markaana la soo gabagabeeyo wuxuu Lawrence Silverman uu sheegay in dawladda Mareykanku ay mar walba taageersan tahay Kuwait inay arintaas ay dhameyso ayuu ka sheegay magaalada xarunta oo ah dalkaasi Kuwait asagoo iyadoo soo xigeynayay wakaalada wararka ee dalkaas laga leeyahay kuna ayuu sheegay Silverman in dawladdiisu ay horeysay damaysaba doonayso in xaalad
caadiya lagu soo celiyo buuri gobolka bariga dhexe. sidoo kale yaasiin dhanka kale markii ugu horeysay markii labaad aan dhaho ayaa agaasimaha ama ninka haatan sida kumeel gaarka uu agaasimo ama u maamulo TV-ga Al Jazeera oo la yiraahdo Geles Tendrely ayaa wuxuu sheegay inaan Al Jazeera la xiri doonin maalinimadii Sabtida ahayd. ayuu wuxuu ka hadlay magaalada Doha isagoo joogay dhex fadhiyay xarunta weyn ee TV-ga Al Jazeera, wuxuuna u sheegay dhageystayaasha in aysan rajeen in ay dhageystaan buuri oo dhagaha raariciyaan buuri dalabka buuri Sacuudiga iyo wuxuu yiri dalalka la ah buuri xulafada. wuxuuna yiri waxaan u shaqeyn doonaa buuri si adag, waxaanu shaqada u sii wadi doonaa sidii aad jeclaydeen, waxaanu sameyn doonaa buuri wax hadda aanu sameyno taasoo ah buuri inaanu war xor ah oo runtii cadaalad ah aanu dunida gaarsiino, waana ta aanu kasii shaqeyn doono ayuu ku celiyay Mr. Tendrely oo hoosta ka xariiqay in TV-ga Al Jazeera uu yahay quwad buuri warbaahineed oo madax banaan oo leh buuri saaxiibo ku xiran oo hela buuri warar xaqiiqa oo dunida ka gees ku kala sugan. yaasiin haddaan dhageystayaashana xusiyo waxaa horey aan u tabinay in hay'adda Qatar u qaabilsan dhinaca xuquuqul insaanka arrimaha gudaha dalkaasi ee la yiraahdo NHRC ay dhawaan sheegtay inay qabsanayso looyaro caalami ah oo ka tirsan ama ku sugan magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland, kuwaas oo runtii ay tiri waxay dacweyn doonaan dalalka saaray cunaqabataynta dalkan oo ay rabaan inay ka helaan dhaqaale iyo magdhow lixaad leh dhibaatadan ka soo gaadhay dadka u dhashay dalkaasi Qatar. cunaqabataynta ama xanimaadan xoogan heer walba leh ee la saaray. sidaas daraadeed ayaa kooxda sharci yaqaanada ee dalkaasi Switzerland ee la yiraahdo La Life ayaa waxay ku dhawaaqday inay si rasmi u aqbashay inay heshiiskaas la saxeexato hay'adda NHRC ama hay'adda la yiraahdo Qatari National Human Rights Committee. waxayna sheegtay in runtii ay haday yihiin hay'adaas La Life markay eegeen bay yiraahdeen waxyaalaha Qatar ku dacwinayso dalalkan ay yihiin bay yiraahdeen kuwa sax ah oo maxkamadaha caalamiga la horgeed doono iyo kuwa waxay yiraahdeen dalalka laftoodaba ay isku dayayaan bay yiraahdeen haday yihiin La Life waa hay'adda la yiraahdo ay horgeeyaan maxkamadahaas. waxayna yiraahdeen in cunaqabataynta la saaray Qatar ay taabatay bay yiraahdeen ilaa xad meel daran, maadaama uu yiri in sharciga caalamiga ahi caadiyan uusan ogolayn in dadka Qatar lagu bartilmaamaysto dhalashadooda maadaama ay Qatariyiin yihiin. tusaale ahaan wuxuu sheegay in shirkadaha iyo ganacsiga iyo shakhsiyadda dadka runtii buu yiri hay'addu tiri la bartilmaameedsaday ay sharci darro tahay. waxaana kooxdan hogaamiyahooda oo hadlay oo la yiraahdo Fechi Heiskanen wuxuu hoosta ka xariiqay in haday yihiin kooxdan kiiska gacanta ku haysa inay rajo weyn ka qabaan inay kiiskaasi ugu dhaqsaha badan kaga guuleystaan dalalkan. marka horena ay maxkamadahooda ay waraaqa u diraan, kol damana ay maxkamadaha caalamiga gaar ahaan kuwa Europe ay la tiigsan doonaan si ay u helaan buuri xuquuqda ka maqan dadkan Qatariyiinta ah ee runtii dhibaatada gaar ahaaneed ay la kulmeen shirkadahoodii oo burburay, ganacsigoodii oo la xiray, reerahoodii ama qoysaskoodii oo laga kala dhantaalay oo la kala xanibay. iyo wuxuu yiri dad badan oo arday ahaa oo imtixaanaadkoodii lagu ciyaaray, dhaqaalahoodiina la burburiyay si sharci darro wadamadaas looga eriyay oo ayagu aan waxba geysan. ayuu sheegay ninkaas lagu magacaabo Fechi Heiskanen oo ka hadlayay magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland, oo sheegay inay dhaqso maxkamadahaas ay ugu gudbinayaan dacwad. haddii arrintan la fiiriyo, haddii Qatar ay arrintan ku guuleysato, waxaa jira dad aad u fara badan oo gaaraya ilaa 13,000 oo qof oo dacwadaha gudbiyay, kuwaas oo isugu jira ganacsato, arday, shirkado waaweyn, kuwo diyaarad wax walba leh. qolo walbana waxay sheegatay dhaqaale lixaad leh oo kaga dhumay ama khasaare ka soo gaaray intii ay saarneed cunaqabatayntaas. haddii taas
sidaas maxkamadahaas u xukumaanna waxay noqon doontaa in dowladahaas ay wajihi doonaan inay bixiyaan dhaqaale xoogan oo haddii ay qatar ay ku guuleysato ama qadariyiintaas ay ku guuleystaan arrintaas. sidoo kale dhanka kale madaxweynaha dalkaasi ruushka ninka la yihahdo Putin ayaa wuxuu sheegay inuu telefoon kula hadlay aan idhaahdo amiirka dalkaasi qatar ninka la yihahdo amiir sheekh Tamim bin Hamad Al Thani waxaana labada hogaamiyey ay ka wada hadleen qadiyada arrintan iyo diblomaasiyadda xiisadan xoogan ee sii xoogeysanaysa iyo si diblomaasiyad loogu dhamee lahaa sida war saxaafadeed laga soo saaray aqalka la yiraahdo Kremlin ee dalkaasi ruushka looga taliyo lagu sheegay. waxaana qoraalkan Kremlinka lagu cadeeyay in madaxweynaha dalkaasi ruushku uu sidoo kale ballan qaaday in dalkiisu uu xoojinayo buuri maalgelinta dhinaca tabarta ay dalkaas leeyihiin iyo wuxuu yiri xiriiro kale oo labada dal ay samaysan doonaan oo laga yaabo inay ka mid noqoto waxyaalaha inkastoo ay tahay in la sheego ay tahay goor hore ay tahay warar hoose ayaa waxay sheegayaan in laga yaabo in dalka ruushku uu saldhig military isaguna bariga dhexe ka samaysto haddii ay daneebaan in Mareykanku uusan arrintan ku cadaadin Sacuudiga iyo dalalkan khaliijku inay arrintan dabciyaan oo Mareykanku uusan go'aan adag arrintan ka qaadan ayaa waxaa jira warar soo jeedinaya in oo diblomaasiyadeed balse aysan ahayn wax warbaahinta caalamka aynu kasoo xignay in laga yaabo in ruushka oo aad u daneynaya inuu awood lixaad ku yeesho bariga dhexe uu qatar daneeyo qatarna ay danayso maadaama qatar hadda ay dareemayso in culays fara badan ay saarayaan dalalkii dariska la ahayd Mareykanku inkastoo dhexdhexaadnimo muujinayo balse dhinaca madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu daala dhacleyn badan ay ka timid go'aankiisii ku saabsanaa mar uu ku eedeeyay qatar oo sheegay in qatar tahay kuwa taageera ama dhaqaalaha ku bixiyo buuri kooxaha wax qarbuda ee argixisada loo yaqaano walow xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson mar walba soo ku adkeysanayo in arrinta la dhameeyo cadaadis fara badan oo arrinta uu ka wado hase yeeshee tuhun waxaa jira in qatar ay qabto mar walba in Mareykanku uusan isticmaalin saameyntiisa uu ku leeyahay dalka Sacuudiga oo haddii ay saari lahaayeen yani culays fara badan laga yaabi lahaa in arrintu ay dhamaato oo sidan aysan sii soconin oo aysan gaadhin haatan muddo ku dhow 3 week ay dhaaftay. yaasiin sidoo kale ama dhanka kale isla aqalka Kremlinka ayaa waxa laga soo saaray war kale oo qoraal waxaana lagu sheegay in madaxweynaha ruushka Putin oo aad moodo haatan inuu xoojinayo galaangalkiisa siyaasadeed ee bariga dhexe uu telefoon kula xiriiray amiirka dalkaasi Bahrain oo isagu kamid ah dalalkan cunaqabataynta iyo xanimaada ku soo rogay dalka Qatar ninka la yiraahdo Hamad bin Isa Al Khalifa ay telefoon ku wada hadleen waa amiirka Bahrain iyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxaana Putin ku adkaystay ama ku celceliyay ku nuxnuxsaday sida uu doonayo in wada hadallo kafool ah ay yeeshaan dawladuhu isla markaana arrinta ay ka wada hadlaan haday yihiin Carabta asagoo sheegay in arrinta la hakiyo ku saabsan luqadda adag ee diblomaasiyadeed ee lagu wada hadlayo iyo hadalka dagaalka wuxuuna ka codsaday amiirka dalkaasi Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa in arrinta uu qaboojiyo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Kremlin oo ah laba statement oo ku kala saabsanaa labada telefoon ee labada amiir ee labada dal iska soo horjeeda uu kala qabtay dabcan Putin oo haatan xoojinaya sidaan horeba u sheegnay saameyntiisa gobolka oo Mareykanka ay ku loolansan yihiin sidoo kalena ay jiraan in warar sheegaya in awoodii dalkaasi ruushka ee bariga dhexe iyo dunida islaamka uu doonayo inuu mar kale boorka ka jafo kadib burburkii 1991 wajahay midowgii Soviet dunida mar hogaaminayay sidoo kale ama dhanka kale Yaasiro wararka maanta waxaa kamid ah madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu la kulmay wasiirka difaaca ee dalkaasi Qatar ninka la yiraahdo Khalid bin Mohammed Al Atiya oo muddo 4 maalmood ku sugan dalka Turkiga
kana wada olole xooggan oo heshiisiyo iyo fulin qodobo ay dalalkaas la gaadheen ayadoo dalalkaas ay aad isugu dhawaanayaan ama dalka Qatar iyo dalka Turkiga aad moodo inay dhanka siyaasadda aad isugu milmayaan iyo dhinaca difaaca ayadoo laga yaabo in ciidamada la saddex laabo ama la afar laabo ciidanka Turkiga la rabo in la keeno dalkaasi warar diblomaasiyadeed waxay sheegayaan in laga yaabo in ilaa 5,000 ilaa 6,000 oo ciidanka kala duwan ee dalka Turkiga ah iyo saldhig weyn ay ka dhigtaan dalkaasi Qatar gaar ahaan magaalada Doha ee caasimadda isla markaana saddex qaybood oo ciidanka Turkiga ah oo qayb tahay cirka qayb badda iyo qayb ciidanka dhulka ee Turkiga ee caanka ay geeyaan halkaas ku xoojiyaan taasana keentay in Khalid bin Mohammed Al Atiya uu muddo 4 maalmood ku sugnaado magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga waxaana uu shir gaar la yeeshay dhammaan hay'adaha kala duwan qaabilsan amniga sida wasiirka difaaca Ishik Fikri Ishik iyo taliyaha ciidanka guud ee qalabka sida dalkaasi Turkiga ninka la yiraahdo General Hulusi wuxuuna goor dambe oo shalay la kulmay ama xalay oo sabti si baxaysay axadna soo galeysay la kulmay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxayna ka wada hadleen labada nino sidii arrimahaas loo fuli lahaa labada dal xiriirkooda loo xoojin lahaa arinta ciidanka Turkiga loo dedeji lahaa wixii ka dhiman sidoo kale madaxweynaha Turkiga oo ayaa sheegay in uu ka xun yahay in runtii lagu hayo cunaqabatayn dalkaasi Qatar wuxuuna sidoo kale mar kale ku celiyay in ay xushmad darro u arkaan hadii mar dambe lagu celiyo erayga oranaya in ciidanka Turkiga Qatar laga saaro wuxuuna ku tilmaamay in arintan aysan Turkigu cidna aysan uga qaadanaynin ogolaansho ay tahay wax ay labada dal isku afgarteen isla markaana wada shaqeyn heshiis wada shaqeyneed oo labada dal u dhaxeeya Turkiga uusan bariyaynin in fasax uga qaato dal kale ayuu yiri afayeenka madaxweynaha Turkiga oo hadlay ninka la yiraahdo Ibrahim Kalin oo sheegay in wada hadalkaas uu ahaa mid midho dhala Yaasin sidoo wararka kale muhiimka waxa kamid wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Saudi Arabia Dr. Adel Al-Jubeir ayaa wuxuu sheegay in 13 qodob ay u gudbiyeen dalka Qatar aan laga noqon doonin lagana wada hadli doonin waxa kaliya laga wada hadli karaana ay tahay buuri in 13 qodob oo miiska saaran laga doodo balse hadii ay diidaan buuri Qadariyiintu ay laba jeer ka shalay doonaan oo sida uu sheegay asagoo bartiisa Twitterka wuxuu ku qoray waliba waa Twitterka waa rasmiga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Saudi Arabia ayuu wuxuu sheegay in cunaqabataynta yaxnimaada ay saareen Qatar ay ka turjumayso buuri sida aysan ugu dul qaadanaynin buuri argagixisada oo runtii uu Qatar ula jeedo argagixisada inaan u dul qaadan doonin ay ka turjumaysaa buuri cunaqabataynta ilaa xad ee aanu saarnay Qatar tafaasiil kale muu bixin wasiirku wuxuuna sheegay in 10 maalmood waqtigu uu soconayo ayna sugayaan buuri in maartay 9 habeenimo ee waqtiga loo yaqaan GMT oo uu dhamaad doono runtii go'aankaas oo dhamaadka maalinta axadda dhinaca wadamada reer galbeedka xalka ay noqon doonto East Africa iyo dalalka Soomaaliya kamid tahayna oo ku eg tahay deadline-ka la siiyay habeenimada Isniinta soo galayso isku soo wada duduub Yaasin arinta Qatar faray kama qodna wali ma soo dhamaanin runtiina horumar weyn lagama gaadhin Qatar hoosta ka xariiqday inaysan haba yaraatay aysan waxba ka fuli doonin go'aamadaas waxuna ka qaadan doonin gorgortan aysan ka gali doonin arintan waxayna u muuqataa arintu inay waji kala yeelan doonto wixii loo gaaro subaxnimada Isniinta oo ay cadaan doonto in Qatar ay diiday si rasmi ay u diiday waqtigana uu dhamaaday dalalkaas iyo talaabooyinka kale ay qaadan doonaan horay ayaan u sheegnay inay ka digeen waa Sacuudiga iyo dalkaas waliba Imaaraadka Carabta inay xoojin doonaan in dalalka kale ay xiriir kala leeyihiin ayaguna ay cunaqabatayn saaraan ama ay xiriirka ganacsi iyo kan hawada iyo kan badda ay ka goostaan dalkaasi lama se gara doono sida ay u helayaan taageero lixaad leh ayagoo tijaabadii koobaad ee dhinaca diblomaasiyadda ay muuqato in hiilkii uu sugayay ama uu filayay Sacuudigu gaar ahaan dalalka weyn Islaamka uu ka sugayay uusan helin arrintan dunida Islaamka badankooda ay ka noqdeen dhaxdhaxaad ishana ay ku hayaan sida muuqata oo ay doonayaan in arrinta lagu dhameeyo wada hadal iyadoo kuweydna la daala dhacayso arrinta wada xaajoodka oo aad moodo inay ku kaliyeysatay marka
iyadoo Turkigana geeska lagu feeray taliyeentiina barnaamijkan isugu imaan doono mar walba haddii alla qadaro waxay idin ballan qaadanaa inaan warar sugan aan idinka soo ururino isla markaana aan idin siino taxliil ku saabsan sida xaaladdu ay marba tahay.